madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa madaxweynaha oo ay wehelinayaan xubno kamid ah golihiisa wasiiradu ay saaka kormeer indheena ku tageen xeryaha ay degan yihiin dadka qaxoontiga ee ka soo barakacay wadanka ay dagaaladu naafeeyeen ee Yemen halkaas oo madaxweynuhu socod lug ah ku dhexmaray xeryahaas ay xukuumadda Soomaaliland dejisay dadkani qaxoontiga ah kormeerkaasi kadib waxa warbaahinta goobtaasi kula hadlay wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland Cali Siciid Reegal iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo sidoo kale maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo madaxweynaha warbixin kooban ka siiyay xaaladda dadkaasi qaxoontiga ah iyo sida xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala Soomaaliland ay dadkan uga caawiyeen dhamaanba adeegyadii ay u baahnaayeen ee aad u xirsaartay inaad nagu soo booqato meelihii santarada ah dadka qaxootiga ah lagu soo dhaweynayay ee aad ugu tala gashay in lagu soo dhaweeyo dadka qaxootiga ah ee dalka jaarka ay nahay Yemen dhibaatada ka dhacday ka yimi aad bay farxad noo tahay mudane madaxweyne santarkan iyo waxa jira santar kale oo kan la eeg oo isagana labadaba ay la sameeyay oo la diyaariyay oo hay'adaha deeqda bixiyay UNHCR iyo IOM iyo hay'adaha la mid ay naga caawiyeen oo ay dul habeyn noogu sameeyeen dhismayaasha hore iyo goobtana maamulka degmada iyo maamulka gobolka Saaxil ay keeneen madaxweyne sidoo maayirku ugu soo dhaweeyay ayaa halka ugu soo dhaweeyay gobol ahaan runtii halka juud badan baa naga galay markii hore waxay xarun si kale u qaabaysan bahay intani iyo baadhista kor iyo hoos baa wada isugu dib loo meetingreeyay runtii waxa loogu badneeyay ee waagi dhawato 1400 aan isku keenay qaxootiga madaxweynaha Soomaaliland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin qaabilaadda dadkani qaxoontiga kana caawin doonaan dhamaanba adeegyada aasaasiga ah ee ay dadkani u baahan yihiin waxaana madaxweynaha hadaladiisii kamid ahaa alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah aad baan soo dhaweynaa qaxootiga dalka iyaga yimid ka soo caray dhibaatooyinka واجب أن نقول هاي حل سعر ويا حل وين ويسك سعر الناس اللي مسؤولين تقول بقول يلهدين إن عندك حقوقك الشغل وينه إن الرابع بحنا ملو ذكرسينه وحنا رقم كرنا رقم ورنا وحنا كل أحد لنا متشكر إن شاء الله تعالى إلهي إحنا نوضع قرب تجون جيد السلام عليكم. جست كلنا مدحونا Soomaaliland iyo waftigiisu waxay isla saaka kormeer ku tageen dekedda caalamiga ee magaalada Berbera halkaas oo ay ka socoto dhismaha barxadda cusub ee lagu ballaarinayo dekedda Berbera way shaqaalaweynaha dekeddu ay ku dhisayaan hab iska wax u qabsaa taas oo hore u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland imikana dhismeedu gabagaba ku dhow yahay maariyaha dekedda Berbera injineer Cali Umar Maxamed Cali Xorxor oo isagu goobtaasi warbaahinta kula hadlay ayaa madaxweynaha uga waramay dhismaha barxaddan lagu ballaarinayo dekedda Berbera isagoona sheegay in dhismaha cusub ee barxaddan uu ku dhow yahay gabagabo una dhamaan doono muddo 7 cisho kadib haddii Allah wada leeyahay عبد الله وبركاته كسولو مر dambe hadana dekada Berbera halka waxa ka socota hawl cusub ka socota madaxweyne waa kordhintii dekada capacity-geeda kor u qaadayna qaybtii hore waa dib furay qaybtii labaad baa imika dhamaad noogu jirta qaybta dhamaanaysa in kuwa 2 hektar iyo bad way lugeyn doonaa waan ku tusi doonaa dhamaadkeedu wuxuu qaadanayaa ilaa 7 cisho dambe ayuu qaadanayaa laakiin maanta waxa loo fursada shaqadii oo socotay inaad aragto hawsha baaxadeedu leegtahay inaad aragto waxaan rajaynaynaa dekeduna intii inuu qayb qaban karnaa qabano hawshii kale ee maalgelintana gudidii wasiirada ahaa oo aan ku jiro ayaa gacanta meel fiican bay noo maraysaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Silaaniyo oo isna barxaddaasi dekedda ka hadlay ayaa maamulka dekedda Berbera ku hambaliyeeyay waxqabadka baaxadda leh ay muddadaasi kooban ka hirgeliyeen dekedda isagoona si aad ugu amaanay maamulka iyo shaqaalaweynaha dekeddu habka iska wax u qabsaa ay ku dhisayaan barxaddani dekedda iyagoona aan caawimo ka helayn gacan shisheeye iyadoo gobolka Saaxil uu noqonayo gobolka ugu waxqabadka badan gobolada Soomaaliland isagoona madaxweyne Silaani 6 bilood ee ugu horeeyay sanadkan aynu ku guda jirno oo yimid magaalada Berbera muddo 3 jeer ah halkaas oo xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo gaadhaysa ilaa 10 mashruuc oo laga hirgeliyay hay'adaha dawliga ee ka howlgala gobolka Saaxil
Khalid Xasan Kharash, telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Berbera.